مصطفى محمد عمر madaxweynaha deegaanka Soomaalida oo bartiisa Facebook ku daabacay qoraal dheer ayaa si qoto dheer uga hadlay guux siyaasadeed oo ku xidhiidha maareynta gurmadka abaaraha iyo andacooyin kale oo ku xidhiidha in ay xukuumadda deegaanku laashay xorriyadda fikirka iyo codka shacabka qoraalka madaxweynaha ayaa u dhigan sida soo socota buuqa siyaasadeed ee maalmaha la furaya waa mid ujeedadiisu caddahay xidhiidhna aan la lahayn arrimaha lagu afgobaadsanayo marka waxaa habboon in aan waqti lagu luminin ka jawaabidda waxyaalaha lugta lagu sii dhufanayo sida abaarta iyo xorriyadda siyaasadda oo ay shacabka u taal in ay iyagu aaraa ka dhiibtaan sida ay wax yihiin balse waa in laga jawaabo eedeymaha tooska ah iyo ujeedooyinka ka dambeeya kow mas'uuliyiintii hore oo ka hadlay abaaraha waxay sheegeen in uu diyaargarowgu hooseeyey iyagoo aan wax caddayn ah raacin haddaba maadaama ay xukuumaddu in ka badan 200 oo ceel qoday calaf beertay kii ay beertay iyo ku 5 jeer ka badanna ama soo iibisay ama ay bilaashba deegaano kale kaga heshay annaga calafna lagama iibsanintu ma noqonayso diyaargarowga hooseeya haddana waxaa habboon in ay mas'uuliyiintii hore wixii ay calaf hayaan ay dadka bilaash ku siiyaan haddii ay u danqanayaan laba waxaa kale oo yana ay tahay in uu shacabku ka doodo cid walba oo mansab madaxweyne soo martay ma mudan tahay maamuus maxaa maamuus lagu mutaa ma in aad magac mansab wadato mise in aad magaca mansabka laftiisa u qalantid miyaanay ahayn in shuruudo lagu xidho maamuuska sida in qofka xaq u helaya maamuus inuu yahay mid aan dhibaataynin shacabkiisa mid si xor ah loo doortay si nabad ahna xilka kaga degay dambiilaha la maamuuso ma afbaa oo ma cadaaladba saddex magaalada iyo miyigaba abaar baa ka jirta marka la leeyahay miyayna ahayn in la kala saaro oo miyigana abaar baa ka jirta la yiraahdo magaaladana busaarad baa ka jirta la yiraahdo abaar iyo busaaradan isku qaldan miyay tahay oo iyadoo busaarad laga cabanayo abaar laga hadlo ma maantu dadkii abaar la daalaa dhacayo ayay ahayd maalinkii maamuus loo dudi lahaa busaaradna laga caban lahaa afar xorriyadda hadalka iyo dhaqaaqa siyaasaddu xaguu ka bilowdaa xaguuse ku dhamaada xorriyadu qowlku ma xorriyadu qalalaasa shan marka laga tago beerlaxawsiga iyo dacayada siyaasadda cid walba oo maanta dadka abaaraysan wax u keenta miyayna mudnayn in la ixtiraamo yay tahay in la ixtiraamo ma qofka dadka oo gaajaysan anigu maxaan u dhargila ahay leh ee calafkii hayay bakhaar ku xaraystay mise ka meel fukraashin ka keenay isagoo aan weliba deegaanka u dhalaynin wax intaas ka badan oo laga hadli karaa wuu jiraa waxaase habboon in xushood lagu daro siyaasadda ayuu ku soo koobay madaxweyne Mustafaa Maxamed Cumar qormada uu kaga hadlayay arrimaha maalmahan taagan ee uu soo geliyay bartiisa Facebook daqiiqada ka hor